toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa sare u kacayay tirada kiisaska fayraska corona taasi oo abuurtay cabsi ah in dalku mar kale wajihi karo mowjad labaad oo COVID-19 ah. Iiraan ayaa bartamihii bishii Abriil bilowday inay dabciso xayiraadihii saarnaa kadib markii hoos u dhac laga dareemay dadka cudurka qaadaya. Kiisaska cusub ee cudurka ayaa celcelis ahaan gaadhaya in ka badan 3,000 maalintii toddobaadkii ugu horreeyay bishan Juun, taasi oo ka dhigan 50% ay sare u kacday isbuucii ugu horreeyay. Tirada ayaa ka sare martay 3,574 Khamiistii oo ku beegnayd 4 bisha Juun ka hor inta aanay hoos u dhicin. Soddonkii bishii Maarch ayaa tiradii ugu badneyd waxay gaadhay 3,186 intii lagu guda jiray bilowgii cudurka, iyadoo xilligaasi ay Iiraan ka mid noqotay dalalka uu aadka fayrasku u saameeyay marka laga soo tago dalka Shiinaha oo ahaa halkii xanuunkaasi uu ka soo bilowday. Waqtigaasi mas'uuliyiinta dalka Iiraan waxa lagu dhaleeceeyay sida ay uga gaabiyeen xidhitaanka masaajidada iyo goobaha muhiimka ee diinta ee magaalada Qom iyo inaan si dhaqso ah loogu dhaqaaqin xakamaynta cudurka coronavirus. Kadib bishii Abriil markii tirada kiisaska cusub ee hoos u dhacday isla markaana ay gaadhay ilaa 1,000 ayaa Iiraan waxa ay bilowday inay fududeyso xayiraadii ay hore u soo rogtay. 20kii bishii Abriil suuqyada ayaa dib loo furay, sidoo kale waxa dib u bilowday safaradii gobolada dalkaasi. 22kii bishii Abriil waxa dib loo furay goobaha dadweynuhu iskugu yimaadaan oo ay ku jiraan goobaha magaalada. 12kii bishii May dowladdu waxay sheegtay dhammaan masaajidada dib loo furi karo. 25kii bishii May waxa dib loo furay xarumaha diinta ay leeyihiin Shiicada dalka Iiraan. 26kii bishii Mayna maqaayadaha, xarumaha dhaqanka iyo goobaha taariikhiga ayaa dib loo furay. Gaadiidka iyo xafiisyada bangiyada guud ahaan dalka Iiraan ayaa iyaguna si caadi ah u shaqaynaya. Markii hore faafidda cudurka waxa ay ka jirtay magaalada Qom iyo caasimadda Teheraan, balse hadda waxa la soo sheegayaa in koonfur galbeed dalkaasi gaar ahaan gobolka Khuzestan oo ah gobol saliidda qani ku ah isla markaana xad la wadaaga Ciraaq oo cudurku ku badan yahay. Waxaa si cad u muuqatay in kala fogaansho la'aanta bulshada iyo dabcinta xayiraadaha ay qayb ka qaateen faafitaanka COVID-19, balse saraakiisha ayaa qaba in mar walba oo sare loo qaado baadhitaanada dadka iyo tijaabooyinka tirada dadka laga helayo cudurku ay badan karto. Waxaana sidaasi qaba madaxweyne Xasan Ruuxaani isna sheegay in arrintu ay ka dhigan tahay in mar walba oo la sameeyo baadhitaano badan la helayo kiisas badan. Maxamed Mehdi oo ah madaxa ugu sarreeya cudurrada faafa ee Iiraan lana shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegay inay jiraan dad qaba cudurka balse aan laga helin calaamadaha xanuunka lagu garto. Sababta ugu weyn ee tirada sii kordhinaysaana ay tahay inaan bilownay aqoonsashada dadka cudurka qaba. Saraakiisha caafimaadku waxa kale oo ay tilmaameen tirada dhimashada maalinlaha ee la diiwaan geliyay inay ka hooseyso 100 ilaa 40 bishii Abriil, balse waxa jira ay leeyihiin warar sheegaya in bishii Abriil tirada rasmiga ee dadka u dhintay cudurku inta la og yahay ee ka kooban cisbitaalada. Wasiirka caafimaadka ee dalka Iiraan Saciid Nakmami ayaa sheegay in dadku iska indhatirayaan sharciyada kala fogaanshaha ee bulshada. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ka digay xayiraado laga yaabo in dib loogu soo rogo dalka haddii cudurku uu ka sii daro.